عدينيا وأد بعد ما تنتهي الشيخ مصطفى مركن وني ما نفذي تان كإسلام كوفيدي حين أنا كنا Soomaalida ama dadka geeska Afrika sidoo qaabku ugu fiday beenoodan si nabad horta ugu fiday si tartiib ah ahna ugu fiday waxyaabaha dadku adeegsadeen waxa kamid ah wacdiga in la isku wacdiyo markii meel la isugu yimaado waxa kamid ah dugsiyada quraanka malcaamadaha ama dugsiyada quraanka oo deegaanada Soomaalida aad ugu fidsan iyo geeska Afrikaba Soomaalida kaliya ma taban waa waxyaabo ugu fiday bay kamid tahay waxyaabaha kale waxa kamid ah kitaabada la raacdo xirta ama xalaqaadka cilmiga sheekh baa kitaab akhriya oo laqabeynaya waxa dhageysanaya dad fara badan markaas ay qaadayaan cilmigi xarumaha ka jiray harar oo kale tii ay kamid tahay iyo xarumo kale oo tiro badan oo hata inaan u baahan in sidooda si gaar ah looga sheekeeyo qarniyaal kala duway kala dambeeyay waxa kamid ahaa markii meel isugu yimaado khudbooyinka la akhriyo jimcaha la tukanaya salaada khudbada jimcaha dadka waxa kamid ah ciid baa la isugu imanaya arrimo bulsho oo munaasabado ijtimaaciya la isugu yimid waa laga hadlayaa waxaad maqlaysaa marka dad badan baa soo islaamaya marka sidaas ay diinta islaamku ay ku soo socotay dabadeed waxa ku soo biiray duruqda suufiyada raadkooda inaga geeska Afrika qoraal ahaan lagu hayo waxay ilaa qarnigii 15aad Sharif Aydrus waxaan hadda Sharif Aydruski cadmaawiga yani waa dabayaaqadii qarnigii 15aad iyo bilowgii qarnigii 16aad ayuu yimid bilowgii qarnigii 16aad uu geeriyoon doona qarnigii ayuu herer yimid dabcan ilaa mantiqadan oo dhan uu maray marka iyo dabadeed way dhici kartaa Sharif Aydrus ma raadkiisa ayna hortiis ilaan duruqdan qaadiriyadu ilaa qarnigii 12aad iyo suufidu way soo jireen in hortiisna ay dad jireen raad badan aynaan ka hayn marka aan ma waa meel cilmi baaris badan u baahan laakiin duruqda suufiyaduna jamaacad bay abuureen ama jameecooyin waxa ka soo baxay magaalooyin waxa kamid ah magaaladan aynu joognay Hargeysa jameeco weyn oo Sheekh Madar uu aasaasay bartamihii ama nuskii labaad ee qarnigii 19aad magaalooyin kale tan oo sidaas oo kale ay ahaayeen marka inahaas waxay kamid yihiin hababkii ay islaamku ku fiday marka waxay ahayd si tartiib ah waxaan yiraahdaan badi walaakinahu akiid al-maf'ul saameyn dhab ah way dadkan way ku qancayaan hagaabiyo laakiin saameyn wuxuu kaga tagay una dib u noqonin waan gartay marka loo yimaado maanta aynu joogno geeska Afrika dadka muslimiinta ku nool waa dad inta badan islaamka aad u qaatay marka Soomaaliduna had iyo jeer dhaqdhaqaaqay marka adduunka meelo kala duwan ay tagaan waxa la yiraahdaa hatta meelaha dalalka kale adduunka muslimiinta ka timid way ka firfircooyin marka si guud u eegno maxaynu oran karnaa muslimiinta geeska Afrika hadii ku soo gabagabeeyna barnaamijka horta muslimiinta geeska Afrika marka la eego wadamada oo dhan marka la isku daro qiyaastii waa 60% qoomiyadaha marka la eego qoomiyado 100% muslimiin jira sida Soomaalida iyo Canfarta iyo qayb Eritreyiinta kamid ah Eritreyiintu ku dhowr ilaa 9 bay ka kooban kala duwan isir moogta iyaguna aqlabiyadoodu waa muslimiinta ilaa 80% baa la gaarsiiyaa tirakoob sax iyuna ka jirinba marka laakiin gudahan marka mantiqada la isku daro Ethiopia lagu daro oo macal Kenya lagu soo daro intaas oo dhan la isku wada daro 60% majority-gu muslimiin bay noqonayaan tan ah waxa jira qoomiyadaha muddada dheer muslimka ahaa diinta islaamku waxay kamid noqotay shakhsiyadooda waxyaabaha sameynaya marka Soomaalida iyo Canfarta shakhsiyada Soomaaliga tiirarka ay ku dhisan tahay sameynaya dhaqanka oo ah waxa kamid ah diinta islaamka Canfartana waa sidaas oo kale waayo wax ab laga soo gaaray laakiin qoomiyadaha laga yaabo 200-300 sano dambe soo islaamay dhaqan kale oo weyn oo wali uu haysto ku soo duxaya ayaa jiro oo diinta si sahal uga tagi karo qofkan laakiin marka waa taasa ugu wacan markay Soomaalida kaliya Soomaalida iyo Canfarta Eritreyiintu markay tagaan sababta ay diintooda islaamka ay aad ugu muujiyaan ay waa taasa kamid waa dhaqankoodii waa dhaqankoodii marka ugu dambeyn maxaynu oran karnaa marka si guud loo eego dadka mustaqbalkooda مثلا dadka maanta muslimiinta geeska Afrika ku nool طبعا waa weligiisba mustaqbalkooda uu iska fiicnaa dhibaatooyin iska jiraan iyaga oo hadda halka waa bad kale oo weyn inuu galiga muxuu ahaay dhinac kale u baahan in loo gale laakiin waxa weeyaan markii la eego geeska Afrika wuxuu ahaa meelaha diinta islaamku ay ka gaadho bartamaha Afrika iyo koonfur Afrika wadamada bartamaha Afrika diintu waxay uga timid xaggan geeska Afrika wadamada koonfur Afrikana waxay uga timid geeska Afrika iyo bariga Afrika ilaan xeebahaas yaan ku taxanahay
wayna isku xidhnaayeen markii hore marka taariikh ahaan la eego laga soo bilaabo Mozambique magaalada Sofala ilaa xeebuhu way isku xidhnaayeen laakiin muslimiintu waa la soo durkiyay dagaalkii xuruubtii saliibiga markay dhaceen xagga 200 sano ay ka socdeen ayaa dhankan kale Afrika ay ka soo wareegeen Portugiiskii marka weerarkii ay soo qaadeen ayaa wuxuu soo durkiyay muslimiintii taariikhdoodii markaas wuxuu keenay ilaa iyo dhulka ay Soomaalidu degan tahay ama ilaa iyo Mombasa ayuu keenay oo Mozambique iyagu ka soo durkiyay baynama markii hore Mozambique iyo xeebahaas ilaa xeebaha Soomaalida marka la soo gaadho ay isku ahaayeen dad isku dhul ah isku muxuu ahaa isku xidhan ganacsi ahaan isku xidhan mararna maamul wadaagi jiray marka ala kulli xaal waxa weyn waa mustaqbal fiican oo islaamka waa diin muddo soo jirtay ah dhulka kalena uu sii gaaray saameyn weyn way ku sii lahaayeen laakiin mar walba kartidooda iyo waxqabadkooda wuxuu ku xidhan yahay noloshooda iyo sidii hawshooda ay u maamushaan aad iyo aad baad mahadsantahay Mustafa waqtiga dheer ee barnaamijkeena siisay daawadayaal idinku aad baad mahadsantihiin inta waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii saddexaad ee martida inoogu aqooniyay Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo inooga warramayay siirada islaamka barnaamijyadii hore siirada taariikhda islaamka iyo sida uu dhistay xadaaradda maanta dadka muslimiintu ay harsanayaan ama u baahan inay dadka kale aan xataa islaamka ay fahmaan sida xadaaraddaas u soo bilaabantay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo bilaabay sidoo kale waxaynu barnaamijkeena ku soo khatinay islaamku siduu u soo galay geeska Afrika hooyada lafteedu u baahan in baaritaano badan lagu sameeyo aqoon fiican iyo aragti fiicanna uu inoogu soo bandhigay aqoonyahan Mustafa tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijyada soo socda ku kulmano waa aniga Cabdullaahi Beershiya iyo aqoonyahan Mustafa Cabdullaahi Fayruus iyo kamarada iyo isku dubaridku inoo jooga Cabdirasaaq Daawus dhamaantay waxaan ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi